wargeyska The New York Times ayaa daabacay warbixin muujinaysa xiisad cusub oo ka taagan xeebaha Yemen kadib markii ay adkaatay in dib loo soo celiyo markab shidaal oo laga afduubtay gobolka Shahwaab. Markabkan ayaa saarnaayeen 12 xubnood oo u kala dhashay Masar iyo Hindiya ayaa la sheegay in ay afduubteen burcadbadeed Soomaali ah oo hubeysan sida uu wargeyska ka soo xigtay sargaal ka tirsan maamulka Puntland. Waxaa sidoo kale jira tuhmo muujinaya in dad Yemeniyiin ah ay ku lug leeyihiin howlgalkan. Warbixinta ayaa tilmaamaysa in baaritaano socdo ay diiradda saarayaan suuragalnimada xiriir ka dhexeeya afduubayaasha iyo kooxaha hubeysan ee ka howlgala gobolka oo ay ku jirto kooxda Xuutiyiinta Yemen. Dhanka kale, hay'adaha ilaalada xeebaha Yemen ayaa sheegay in dadaaladii lagu doonayay in markabka lagu soo furto ay la kulmeen caqabado waaweyn sababo la xiriira awoodda xadidan oo dhinaca badda ah. Markabka oo siday ku dhawaad 2800 oo tan oo naafta ah ayaa la sheegay in uu u jihaystay xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya isaga oo ku jiro gacanta 9 nin oo hubeysan oo la sheegay in ay Soomaali yihiin kuwaas oo watay hub culus oo ay ku jiraan RPG. Hay'adda waxay sidoo kale sheegtay in kasta uu jiro iskaashi caalami ah, haddana doorkoodu uu ku kooban yahay kaliya dabagalka iyo ogaanshaha halka uu markabka marayo iyada oo aan la samayn faragelin toos ah. Dhacdadan ayaa sare u qaadaysa walaac laga qabo amniga marinada badda iyo suuragalnimada iskaashiga u dhexeeya burcadbadeedda iyo kooxaha hubeysan ee gobolka.